magaalada madaxda gobolka Togdheer oo Burco noqotay magaalada ugu nasiibka xullooguna ayaan ka daran leeyahay tan iyo waqtiga xilka la wareegay maamulka gobolka iyo ka degmada magaalada Burco ayaa magaalada ugu nasiibka xulle aan marnaba helin mas'uuliyiintii heer gaarsiin lahayd dawladda hoose magaalada Burco ayaa waxay ka adag tahay oo ay ka soo baxday cashuurka ururinta koryaalayaasha guryaha islaamaha caanalida waxay isweydiin mudan dawladda hoose maxay kaga soo celisay bulshada cashuurta ay ka ururiso xagaysta ku baxda lacagtaasi magaalada Burco ayaa waxa wadooyinka xidhoon si aan caadi ahayn تلتل قرب كيسقوها يكوريون لياشة بجاش كسرية يجين كده اللي جهر لسياقلدا كواس ودولته وشرعية ساعة شهور يوميانا كقاضوا بس هو حيعيد أدق كوكينين كنا سماين ودوين كواوين دحمر مقالة برعو dawladda hoose degmada Burco waxay shaqo ka haysaa wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka balse waxa nasiib xumaa in laamiyada magaalada dhexmar ay halbowlo ay isu bedeleen duuxiyo waaweyn baabuurtuna ay galayso harka galaya kusimaha maayirka ahna maayir ku-xigeenka gobolka Togdheer oo ah mas'uul aan sagu aragti fog lahayn oo ku fashilmay wada halbowlo waa magaalada Burco dhawaan ay xadhigi ka jareen taasoo aan wax shaqo laga qabanin kastaba haatee gudoomiyaha gobolka Togdheer Mr. Xamarji oo ah shakhsi aan laga helin badan xafiiskiisa ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino arrintan annagoo tiraba 4 jeer xafiiskiisa ka weynay tan iyo waqtigii laga soo bedelay gobolka Maroodijeex Mr. Xamarji ayaan gobolka wax qabad muuqdo taariikhda galaan ka qaban isku soo wada duwa bulshada gobolka Togdheer ayaa ku tilmaamtay mas'uuliyiinta degmada inay yihiin qaar aan shaqada hayaan aan aqoon u lahayn Cabdullah Xaniifa magaalada Burco.